xilli abaara baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyadaba ay ka jiraan inta badan dhulka ay Soomaalidu degto ayaa maanta wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland waxa ay shaqaale caafimaad oo daweyn ku samayn doonaan 2,500,000 oo neef ay u kala dirtay dhulka miyiga ah ee ay ka jiraan cudurro sababay in xooluhu ay u baxaan. Mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ayaa goobjoog ka ahaa goobtii lagu kala dirayay shaqaalahani caafimaad. Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac agaasimaha waaxda daweynta xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ayaa ka warbixiyay in daweynta xoolahan laga samayn doono deegaanada ay sida xoogan uga jiraan cudurrada xoolaha saameeyay. muddo hadda laga joogo 2 wiik ka hor waxaanu dirnay wasaaradda xanaanada xoolaha tiimada u dirnay gobolada Puntland dhamaantood haddana waxaanu diraynaa tiimo kale oo iyaguna meelihii culeysku ka jira iyo meelayo kale aan weli la gaarin in bal isku dayo inta xilligan abaaraha ay xoolaha si aad loo daweeyo mudane wasiir iyo mudane agaasime waxaa halkan ku diyaar ku ah dhaqaatiir iyo qalabkoodii iyo daawadoodii oo diyaar u ah inay aadaan goobihii loo asteeyay wasaaradda xanaanada xoolaha u asteysay. Agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Axmed Cali Shire oo isaguna hadal ka jeediyay goobtii lagu kala dirayay shaqaalahani caafimaad waxa uu sheegay in daweynta xoolaha Puntland ay sii soconayso aysan intaasi ku ekaanayn. maanta waxaa wasaaradda xanaanada xoolaha diraysaa shaqaale caafimaadka xoolaha ah oo soo daaweyn doona xoolo aad u badan sida uu agaasimuhu inoo sheegayba haddeer 32 tiim ayaa ku maqan gobolada kala duwan ee Puntland iminkana waxaanu diraynaa kooxo kale oo aanu ku kabayno meelaha aan isleenahay waxa ka jira gaab ama baahi baa ka jirto oo waxay u baahan tahay shaqaale dheeraad iyo daaweyn dheeraad ay u baahan tahay way xilliga abaarta waa la og yahay xoolo aad bay u jilicsan yihiin waxay u baahan yihiin daawo iyo maaragtay xanaaneyn dheeraad ah xilliga abaartu jirto saasaan u wadaynaa ololaha kala joojin mayno insha Allah. Dr. Nuur Axmed Yuusuf Kusimaha wasiirka xanaanada xoolaha Puntland ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo gabagabadii ka hadlay goobta shaqaalahani caafimaad lagu kala dirayay waxa uu kula dardaarmay dhaqaatiirta daweynaya xoolaha inay shaqadooda si daacadnimo iyo hufnaan ku jirto ay u gutaan. hadal yar iyo hawl badan baa leeyahay hadal ahaa agaasimaha yabayiri waxaanu jecelahay tiimamkan waxa weeye tiimam meela la yiri waxa ka jira culays baa lagu siyaadinayaa tiimamkaasoo horeyna waxa uu maqnaa tiimo badan shaqadaana kala joogsan mayso ilaahay idinkiisna waxaan ka rajaynaynaa in roob iyo raxmad ilaahay degdeg ina siiyo waxaan aad u soo dhaweynayaa wasaaradda shaqaalaheeda sida ay hufan oo shaqada u wadaan waxa aan kaloo kula dardaarmayaa baxda caafimaadka xoolaha oo dhaqaatiirta inay u gutaan hawshooda sidii horeba ugu gudan jireen oo maanta waaba ka sii culus tahay xoolaha har iyo habeenba laga shaqeeyo wasaaraddu waxay in la daba taagan tahay mar walba wixii taa kula u baahan tihiin. Cabdi Fataax Cabdullaahi Kalsan TV Garowe.